kusoo dhawaada maqaal kooban oo aan ku eegayno qaraxii ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho kaasoo sababay dhimashada in ka badan 300 oo ruux ku dhawaad 400 oo kalena ay ku dhaawacmeen. waxaa maalintii Sabtida ee 14 bishan Oktoobar 2017 isgoyska Soobe ee bartamaha magaalada Muqdisho ku qarxay gaari kuwa xamuulka ah oo laga soo buuxiyay walxaha qarxa kaasoo sababay inay ku nafwaayaan boqolaal dad Soomaaliyeed oo rayid ah. qarax oo ahaa mid aan horay noociisa uga dhicin gudaha dalka inta la ogsoon yahay mana jirto musiibo xadkan la-eg oo mar kaliya dadka intaas la-eg ay ku dhinteen inta la xasuusan yahay taariikhda dhow ee Soomaaliya sida ay sheegayaan goobjoogayaal ku sugnaa goobta uu qaraxu ka dhacay. walow uu qaraxu saameeyay dhammaan dhismayaashii ka agdhowaa isgoyska Soobe burburna uu ka muuqdo ayaa haddana waxaa jiro dad la tuhunsan yahay inay ku hoos jiraan dhismayaashii dumay hoostooda. maamulka gobolka Banaadir oo ugu horeeyay gudoomiyaha gobolka Mudane Saabit iyo shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa waxay wadaan gurmad iyo dadaal lagu badbaadinayo dadka dhismayaasha hoostooda ku jira. dadka ku dhintay qaraxa ayaa waxaa u badnaa dhalinyaro dalka wax ku baranayay kuwa qalin jibinayay oo lahaa hiigsi iyo mustaqbalkii ay rajeynayeen. carruur badan oo Soomaaliyeed ayaa ku waayay waalidkood, hooyooyin badan ayaa ku waayay qaar ka mid ah carruurtoodii, waalid badan ayaa sidoo kale waayay carruurtoodii nolol iyo geeri midna. isbitaalada magaalada Muqdisho ayaa waxaa buux dhaafiyay meedadka iyo dhaawacyada dadkii ku waxyeeloobay qaraxa. madaxda ugu sarreysa ee dalka ugu horeeyo madaxweynaha federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Abdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha ayaa shacabka Soomaaliyeed kala qayb qaadanaya gurmadka dhiigga loogu shubayo bukaanada u baahan dhiigga ee ku jira isbitaalada magaalada Muqdisho. dhalinyaro Soomaaliyeed oo mutadawwiciin ah ayaa u istaagay gurmadka qaran ee loo fidinayo dadkii ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay Soobe ee magaalada Muqdisho. xarunta harka iyo saamaha dadka ku sugan waxay sameeyeen ciwaano baraha bulshada ah oo loogu magac daray gurmad 252 halkaas ay ku baahinayaan xogaha la xiriira qaraxa sida dadka wali maqan kuwa la hayay ee balse ehelkooda wali aan helin magacyada dadkii dhintay waxayna sidoo kale ka jawaabayaan wicitaanada dadka eheladooda ka maqan yihiin. qaraxan ayaa bedelay qulubta ummadda Soomaaliyeed ee jooga dalka iyo dibadda ayagoo ku tilmaamay inuu yahay musiibo ku habsatay shacabka Soomaaliyeed. basaalina gaaray waa midan illa loo haynay basaalina gaaray waa midan illa loo haynay waxaa jira sidoo kale banaanbaxyo waaweyn oo ka dhacay qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee dalka oo ay ugu horeyso magaalada Muqdisho. shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa isu soo baxay si ay u muujiyaan sida ay ugu xun yihiin ayagoo u tacsiyay eheladii dadkii ku dhintay qaraxii weynaa ee ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho. qaar ka mid ah dadkii isku soo baxay ayaa waxaa ka mid ahaa mas'uuliyiin ka tirsan dowladda ugu horeeya gudoomiyaha gobolka Banaadir. shacabka Soomaaliyeed ayaa muujiyay dareenkooda iyo sida ay ugu xun yihiin ayagoo isku boorinayay inay meel laga soo wada jeedsado argagixisada caadaysatay daadinta dhiigga ummadda Soomaaliyeed.
dad badan oo shalay isugu soo baxay fagaaraha daljirka Daasoon ayaa dhaleeceeyay ururka Al-Shabaab waxayna ayagoo careysan ku baaqeen in meel laga soo wada jeedsado ururka Al-Shabaab dareenka banaanbaxayaasha oo mid ay la wadaagayeen dad badan oo aanan tegin dibadbaxa dhacdan waxa ahayd mid midaysay qulubta Soomaalida oo dhan in ka badan dhacdooyinka kale ee dalka soo maray dadkeenii 300 go'een ilaahay waxaan ka baranay ilaahay una qariisto dadkeena masiibo qaran bay nagu habsatay shacabkana waa inay dawladda la shaqeeyaan waa inay soo sheegaan meel kasta ay ku jireen dadkeena xasuuqay tan oo kale qarax la meedha waa xasuuq intaan soo taagnaa ma arkin tan oo kale weli ma arag masiibada nagu dhacday waa mid nagu habsatay shacabka waa inay dadka la shaqeeyaan dawladda waa inay caawiyaan haddeen kulligeen waa inaan ooyno haddaan ooyin meel ma gaadhayno oonaan kulligeena soo bixino shacabkeena soo dhexgelin oonaan xaafad kasta tegin shacabka waxaa kula dardaarmay maalin walba inay soo baxaan oo la dagaalamaan gobolka Banaadir ayaa shacabka Soomaaliyeed ka codsaday inay ka daayaan sawirrada foosha xun ay ku baahinayaan baraha bulshada waxaan mar labaad iyo mar saddexaad idinka codsanayaa sawirrada foosha xun iyo fiidiyoyada aadka looga naxayo oo dadka aad ku argagixinaysaan inaad ka saartaan oo aad meydka xurmaysaan meydka xurmuu mudan yahay walaalka xurmuu kaa mudan yahay waqtigan adag ee xanuunka badanna xurmuu kaa mudan yahay Soomaali yaa wadani سوي ناس واحد ويا شيء وعندنا إلى فرنتورة تقو وعندنا إلى تلك يدفعوا شباب اختقوا ورا ماضي وعين لا ياي وزير يوم وين رئيس وزراء ودك وحاكم مقام كرو وانا كويس كاشنا أنا قبيلتك صوتكنا أنا قبيلك صوتكنا ما ملذا ما كوبي أنا صوتكنا وحاول ضعوا فرين رايك سماعي كشري وعين لا ياي ورونا لي أول صوتكين ما تصابر واحد صغير ورمى حدعي ورسومالي أنا ولاته وحاول شاقي شعبك صوماليات وحاول شاقي دليل صوماليات هنيب كانوا صوتوا بايو فيسبوك صادقين للتايو ولا لي لو أنت الكان وشقينا أن عدونا درنا شباب صومالي ما فكرة شاي وطن ولا سؤال يكسري مشاري ساقاتين دوني ماينا شباب ما شعب كل لا يا دولة ما taariikhdu markay ahayd 4 Oktoobar sanadkii 2011 ayaa gaari xamuul ah oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay lagu qarxiyay xaruntii harkaha iyo saamaha markaas oo xafiis u ahayd wasaaradda dhowr ah ee dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya 6 sano ayaa ka soo wareegtay qarxaasi oo wixii ka horeeyay maalintii Sabtida ee la soo dhaafay ahaa kuwa qasaaraha badnaa waxaana la sheegay inay ku dhinteen ilaa iyo 100 qof oo u badnaa arday rajo ka qabay inay deeq waxbarasho loogu qaado dalka Turkiga kuwaas oo magacyadooda ka fiirsanayay wasaaradda waxbarashada oo halkaas ku tiilay Sabtida xarunta harkaha iyo saamaha waxa ay mar kale marti u noqotay musiibo kale oo dalka ka dhacday waxaana ay tani timid kadib markii dawladda ay ku dhawaaqday in harkaha iyo saamaha ay tahay xarunta gurmadka qaraxii ka dhacay isgoyska Soobe waxa halkaas la isku geeyay dhalinyaro mutadawiciin ah iyo saraakiil dawladeed oo ka shaqeynaya howlaha gurmadka musiibadii ka dhacday isgoyska Soobe maalintii Sabtida ee taariikhdu ku beegnayd 14 Oktoobar عددنا aysan jirin cid ku dhiirata inay sheegato ayaa waxa ay dawladda ku eedeysay ururka Al-Shabaab balse ururka Al-Shabaab kama aysan hadlin weerarkan dadka badan ay ku dhinteen mana jirto koox sheegatay ilaa hadda halada meel kasta ay joogaan gudaha iyo dibadda iyo xitaa dadka siyaasiyiinta ee ku kala aragti duwanaa ayaa si isku mid ah ugu wada damqaday dhacdadan waxaana socday olole lagu gurmanayo dadkii ku waxyeeloobay musiibadan wax waliba mas'uuliyad leh sanadahan dambe qaraxyada dhacaya waa su'aal taagan horta yaa mas'uulka horta yaa mas'uulka waryaa qaraxa mas'uulka mina qaxayso maanana
maray raaysi maykala siwado marin wali ma joogta waa masiibo qarano maankeenu diido meelay ujeediyo meeshay ka jeedaba meeshay ka jeedaba marna aan la garanay horta masuulka ويا غرها مسؤولك madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo kamid ahaa dadkii ka qayb qaadanayay gurmadka loo fidinaya dhaawacyadii ku waxyeeloobay qarxii ka dhacay isgoyska Soobe ayaa sheegay in loo baahan yahay in isku meel loogu soo wada jeedsado argixisada ee cadaystay inay daadiyaan dhiigga ummadda Soomaaliyeed horarka oo nabadiidka ah wal shabaab inaysan u nahayn cidna waxaan ilaahay uga baryeynaa dadkaas inuu si degdeg uga kiciyo dadkii dhintana waxaan ilaahay uga baryeynaa inuu naxariis jannadiisa siiyo magaxumaalo kubalihidi jaabiyo ifafaala qayle akhirana meeqo rabbi kugumache دعيسنا لو إرمانتو إداد كشون هاري واد كيس الميلي اللي يودد كيلو هو دوكسوني